بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته daawadayaasha ku xiran channelkayga YouTube-ka Ismaaciil Aqila kusoo dhawaada insha Allah ta'ala barnaamij qaybtiisa labaad aan kaga hadli doono sida looga hortago qaladaadka ka dhaca insha Allah ta'ala halkan kaga bogo balse haddaad nagu cusub tahay walaal fadlan subscribe saar channelka haddii barnaamijyadeena aad ka heshay like saar sidoo kale sii share gareey si dad kale ay ugu faa'iideystaan insha Allah ta'ala adiga kaliya aadan isugu koobin sidoo kale barnaamijyada xiisaha badan ee halkan aan ku soo gudbino si aad u hesho ama aad u noqoto qofka koowaad ee barnaamijyadeena hala gambaleelka furo iska jir in qalad mar aad gashay uu kugu noqdo boog abid ku daba socota si joogto ahna aad u xusuusato waayo taasi waxay ka hor istaagaysaa in aad dadaal dambe u gasho oo cabsi ayaad ka qaadaysaa in aad haddana qaldanto qaladaadka ka qaado wixii duruus ku jira sida inaad fahanto sida uu ku yimid iyo sida ay tahay in aad mar labaad isaga ilaaliso intaasi waxa ka soo hara waa qaladka in aad dhabarkaaga dambe ka tuurto ama aad iska ilowdo si aan mar dambe u xusuusanin waxaan filayaa insha Allah ta'ala in barnaamijkeena aad ka bogateen insha Allah ta'ala qaldaadkiina aad ku sixi doontaan biidnillaahi ta'ala gudaan barnaamijkeena maanta intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa allaba anigoo walaalkeen Ismaaciil Aqila idin tabiya halka aad ka daawanaysaan waa channelka YouTube-ka Ismaaciil Aqila inta barnaamijkan midkiisa aynu ku kulmi doono sidaas iyo nabadino noqli kulanti dambe oo xiiso leh